wafdi balaaran oo ka socdeen hay'adaha talyaaniga ayaa maanta waxay soo gaareen xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar iyagoona si wada jir ah booqasho ku tagay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiishan ka socotay hay'adaha talyaaniga xarumihii hore ee talyaaniga iyo sidoo kale qabuuradii ku aasnaayeen qaar ka mid ah wadaadada u dhashay talyaaniga ee ku aasan xaafadda Isnaay ee magaalada Jowhar qaar ka mid ah saraakiishii halkaasi ka soo qayb gashay oo hadallo kooban ka soo jeediyeen ayaa waxa ay sheegeen inay booqashadani tahay mid farxad gelinaysa ee haatan ee muhiim u tahay inay soo booqdaan halkay ku aasan yihiin qaar ka mid ah ka soo jeeda dalkaasi talyaaniga sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda talyaaniga ay ka codsanayaan ay ka qayb qaataan horumarka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale inay dib ugu soo laabtaan hay'adaha talyaaniga magaalada Jowhar iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe meel walba soo marteen shacabku ayaga nabadgelyada ka shaqeeyay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa ka shaqeeyay nabadgelyada waa nabadgelyo gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhawaad ayaan idin leenahay aad iyo aad ayaad noo mahadsan Maxamed Nuur Cabdi Xuseen Somali Channel magaalada Jowhar.